jirina dhanka kaadka u tahay faa'iido weyn waayo intaasoo diyaarad ayaa kaad geeya Soomaaliya Kenya way ka faa'iidaa laakiin Soomaaliya dhibaato weyn bay kaadka ku haysaa aniga siyaad Yusuf bedel baliida ma garan Kenya aan ku sugnahay oo dhadhaab ku sugnahay waxaan u arkaa laba dal oo walaalaha oo xuduud wadaaga oo wanaag iyo sharaf iyo macaamil wanaagsan ku wada nool bay ahaayeen ma garan dhibaatada hadda muuqatana waxa weeyaan waa mid labada iyo shacabka iyo ganacsigooda iyo wada noolaashahooda aad wax ugu dhimaysa ma garan loomana baahna inay heerkaas gaadho ma garan waxaan u arkaa in arrintaasi dowladda Kenya ka noqoto Soomaaliyana wali jawaab kama bixinina jawaabta ay bixinaysa mid deganaansho oo wanaaga ku salaysan iyo saaxiibtinimadii guud inay ilaaliso iyadna lafteeda anigoo maxamuud kan cajeedi oo ku magac dheer Dhagbiro ku nool magaalada Gaarisa arrintan maanta labada safiir ee dalku labada dal Soomaaliya iyo Kenya ay kala qaateen waan ka xumahay waxaan u arkaa arrin cawaaqib kuma keenayso sababtoo ah dalku waa laba dal oo derisa wax badan oo ka dhaxayaan marka labada dawladood waxaan ugu baaqayaa waxay ila tahay inay isku tanaasulaan oo xiriirkooda soo wada waan ka xumaa magacayga waxaan u dhahaa Dibbe Cali waxaan ka mid ahay odayaasha gobolka Waqooyi Bari waxaan hadda maanta rasmi ahaan u joogaa Gaaris annaga waxaan qabnaa ilaahay markuu Soomaaliya iyo Kenya waa wadano isku xigto ka dhigay inuu la tastay male wax badan baa ka dhaxeeya waxyaalo fara badan baa ka dhaxeeya labada wadan waxaa loo baahan yahay in dulqaad uu jiro labada dawladood ay isu dulqaataan ciidanka Kenya baa Soomaaliya jooga intaasoo 100,000 Soomaali oo qaxootiga Kenya joogta intaasoo 100,000 oo Soomaali oo ganacsatada Kenya jooga anagii ku dhalanay Kenya oo reer Kenya joogna marka waa dad wax iskaga xiran yahay labada dawladood wax weyn baa iskaga xiran waxaan dhihi lahaa meesha u dambaysa inaan la tegin isla hadlo isto waa hagaaga dhegaystayaal aad bay hadsan yihiin waxay ahayn qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan waqooyi bari Kenya oo iyaguna raygooga ka dhiibanayay arrintan ka dhex taagan Soomaaliya iyo Kenya